waa daanyeer lagu helay Jaanis. Xayawaankan xajmiga weyn ee lagu magacaabo koodho waxaa lagu magacaabaa komodo, muuqaal ahaan u eg mansuluguleyda, ayaa waxa uu ka helay meel si gaadmo ah daanyeer luqunta ayuuna ka qabsaday. daanyeerkan waa uu la harbinayaa in uu ka badbaado ayuu isku dayayaa, laakiin hawshu waa ku cakiran tahay. waa isku jebiyey waxa inuu eg tahay in daanyeerkii sidaas looga takhalusi doono. bal aan daawano meesha ay ku dambayso hawshu. dhulka ayuu ku dhejinayaa si xaasidnimo ah. xayawaankani haddaba ma calaaliyo waxa uu qabsado, sidii naxaaska ama maska ayuu u liqaa. daanyeerkii waa ka takhalusay, waana la liqayaa gebi ahaanba, isagoo meelna ka jarin ayuu sidiisa u liqayaa. fiirso, waa cunto macaan buu gacanta ku dhigaa laleeyahay maanta. muuqaalkan waxaa duubay koox dalxiisayaal ah oo kula kulmay meel har oo biyo ku jiraan xilli uu si gaadmo ah ku qabsaday bahalkan lagu magacaabo komodo. daanyeerkaas qaybtii ugu dambeysay ayaa u hartay. maanta waxay ahayd maalintii ugu dambeysay dunida daanyeerkan. kanna wuxuu noqday mid ku weliimaystay hilib macaan. si waan ula soco, arab iyo ilko oo ku alaaliyo ma hayo, laakiin wuxuu ku hayaa af oo wax ku qabsado. wixii uu qabsadana xoog ayuu ugu sheeganayaa. luqadaha qaarna waxaa lagu dhahaa xayawaankan komodo dragon. bahalka oo qabsadana waa daanyeer oo lagu magacaabo monkey. xajmigiisa aad ayuu ugu weyn yahay daanyeerka, laakiin haddii uu fursad heli lahaa waxaa hubaan inuu daanyeerku ka baxsan lahaa. maxaa yeelay xayawaankaana orod dhulka kuma lahan, geedahana ma fuuli karo. si gaadmo ah ayuuna ku helay. qaybta ugu dambeysay afka ka soo jeeda sidaad arkaysaan. waa uu isku dejinayaa maadaama maanta uu helo cuntatii ugu macaaneed. daawadayaal, haddii aad ka hesho muuqaalkan, sheer iyo commenti fikirkaada noogu reeb. sheerna sii dheh, pagekana follow noo dheh, youtube channelkana subscribe, commentigana noogu reeb si aad u aragto haddii aan soo wadayna muuqaalada noocan oo kale ah iyo haddii kaleba. waa mahadsantihiin daawasho wacan.